الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وبعد فالسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوتي العزيزة، شرحنا كلمة من نفس النبي عليه الصلاة والسلام. أظن أحاول درس ولا لفظ لكن وكان الشيء ماشي كده كده طبعا كده يبقى وهذا تاريخ النبي عليه الصلاة والسلام من سيرة فينا وكان لنا waxaana isku day doonaa inaan qaadano waxayna kitaabka farka marinaynin inkastoo dadka inta badan aadsanayeen kitaabka raxeet almakhtuum la yidhaahdo ayaga sawiigala macaan yahayda akram diyaal cumar ee siira nabawiya saxiixakiisa la yidhaahdo. laakiin waxaa isku day doonaa un bal cumuuman labada kitaab baynagu adeegsanaynaa wixii oo kooban inaynu soo bandhigi doono. waayo siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay tilmaamaysaa waa diintii oo la dhaqan geliyey. marka waa dadkii diinta dhaqan geliyey nabiga calayhi salaatu wasalaam, saxaabadiisii oo ah sifadii ugu saxsanayd ee loogu dhaqmo islaamka. innaga waxaynu haynaa hadda isagoo qur-aan iyo sunno ah oo qoraal ah, laakiin marka kale waxa weyaan isagoo camaliya oo dad ay matelayaan qur-aanka iyo sunnadii, yani dad ama bashar dhaqankiiba waxay matelayaan qur-aanka iyo sunnada sida wakaaya. saa daraaddeed way fahamkeedu wuu ka dhawiyo qofku inuu markiiba suuro fiican ka fahmi karo diintu siday ku faaftay ama wixii ay siday ama risaalada iyo macnaheediiba. waxaan isku dayi doonaa markaasi balse labada sheekh kusoo naqlayaan inta badan inaanu soo guuriyo. haddii ay jiraan mawaadiic ama meelo loo baahanya in gaar loo sii tilmaamo insha allah haddaynu awoodno isku dayi doonaa. cumuuman culamada muslimiintii markay siirada ka waramayaan waxay u sameeyaan gogoldhac ama hordhac. hordhacaasi waxay ka bilaabaan ama waxay ku tilmaamaan wixii nabiga ka horreeyay calayhi salaatu wasalaam. hordhaca waxaa looga danleeyay inay dadku fahmaan bulshadii uu nabigu u yimi caynka u ekay, si aad u garan karto inta ay guurtay bulshadani markii dambe sida u ekaatay. yani waxaad qiimayn fiican tawiri kartaa nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii uu soo saaray iyo mujtamacii muslimiinta ee kawirna sida u ekaadeen inta uu u jiray mujtamacii hore ee jaahiliga ahaa. oo marka ka jaahiliga ah suuradiisa aragta ayaad garanaysaa dadkan inta ay guureen inta ay leekay. waxaa kaloo runtii dhadhawaanayaad garan kartaa maadaama mujtamac nooca u egba la horay oo islaamnimada ay bedelka intan lee ku samaysay inaanu jirin mujtamac dunida kamid ilaa la rari karo nooca loo rari karo. ay ku xiran tahay sida alla ina waafajiyo subxaana watacaala iyo sida dadku juhdi uu bixiyo dadka diinta kan ugu yeerayaan. qaybtaa hore markay ka waramayaan culamada taariikhda islaamiga qorta qaarba sibay u tilmaamaan, qaarkood ilaa aadam bay isku dayaan taarikh muujisa inuu kasoo sheega. yani min aadam kutuba taarikh in badan oo kamidi nabi aadam bay kasoo bilaabaan. qaarkood waxay ka bilaabaan dhulka iyo cirka iyo sidii alla sameeyey waaka ilaa way soo gaarsiiyaan. laakiin taariikhahaas hore qadiimka ah waxoogaaba yare waxyigu sheegay mooyaane inta badan maxfuud maaha. sidaa awgeed labadan kitaaba horteena yaalla muddo in buu soo koobaya, laakiin waxaa isku dayi doonaan inaan si fudud u wada guud maro. kow, ummadda carabeed iyo dhulkay degto waa dhul macruuf ah. carabina intan jaziira alcarabiya la yidhahdo unbay taariikhdooda dambegi jirtay. carabta taariikhiya markay culamadu qaybinayaan ilaa 3 qaybood bay ka dhigaan. carab ay yidhahdaan waa alcarab albaa'ida ama carabtii tirtirantee hore ee gabowday, waa caad iyo samuud iyo kuwan quraanku ka waramo. iyo carab ay ku tilmaamaan alcarab alcaarida oo ah qaxtaaniyiinta nimanka la yidhaahdo carabta gasha. iyo carab almustaaraba oo ah kuwii nabi ismaaciil calayhi salaam ka abuurnay ama cadnaan cidda gashaa. inkastoo culamada bad ay leeyihiin qaxtaan iyo cadnaan labaduba ismaaciil bay galeen, waana sida uu rajaxayo ibn xajar alcasqalaani xafidahullah raximahullah. alxaafid ibn xajar sida uu rajaxayo isagu wuxuu leeyahay labada kooxoodba qaxtaan waa min aali naabit ibn ismaaciil buu qabaa, halka ay qoladan kale ka yihiin cadnaan ibn ismaaciil ay ka galayaan. marka aynu soo koobno
هذه يقول تاريخ عربات مثلا في المامية مثلا قحطانيين اللي مثلا هذا أصل وحوها اليمن لبقى بيلاقي وين ويوقع السنايين من الحمير اللي هذا هي من كهلان لو رجل كهلان انت بدن وجورنا الشام يا مصر يا دول كتيبة تبدي جرنا في بدنايا حمير ده بدنا بس ماشي كان في صحراء عربت كلا مستعرض عدنانيين لا مش بينيه وعربت مكاسي نبي إسماعيل سبب وقف الصفة نبي إسماعيل وين النبي إبراهيم عليه السلام النبي الله إبراهيم نفسه تاريخ بقوله هنا دولك عراق بقصة بحي أما دولك عراق بقول شيء تبى فلسطين بويدي جرودي كذبنا وحيي مكة هل كان مكة تبع الإسلاميين وحنا كانتين ولا مكان حديث البخاري في علي بن عباس وورنا يوم أقول ابن عباس هو حاسيل شيء أولا دي هاجر اللي ورنشري هي علمها إذا شيء ونبي الله إسماعيل عليه السلام اللي بدأ في أي مكة كاني لما أنا مكة أيوك قتلي سبعة وحده وقتلي يقول سبرار بيا هي مكتمرة أما الله ولا من بيا كشران مدنا تمر كشفته وشاهدنا من الله سبحانه وتعالى أمرين وغطاء كذا إذا أن تاريخ قائمنا على الإمام إبراهيم إنت الله هو أفر شر أو تنبأ ليش هتكفون متى وراء إسماعيل مرة أيوجني وأحمد أي نصوص القرآن كتور رمي كيف وبين وقالوا أما إنه قوله أخير كي إسماعيل فلما سلم وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجي المحسنين إن هذا له البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم مثل الله سبحانه وتعالى كتور رمي ويقول هذا كتاب التوراة هاي سفا أما كان يمكن التوراة كشري سفر تكوين كوزنا كشري ودورية تبشير مركاها نبي الله إسماعيل مرلبات يوقصها النغضينا وبدأ حديث كور رمسائين ويمي وقبتنا ويمي سبع نبي إسماعيل كما كان يحيكور جيسي وقبل وقبل ويمي قبتنا ويديين حال كود يسيدي هاي الشاقتين مركاها إن مدة بنا هيسفان الله شاء يعيد قطعي ويريد تجيان كي يفرين تدرسيه وحطوش الأبعادها وحقوره عقبات الباب أما عقبات الدريقة جبت أيوك إلى أبها نبي إسماعيل لما كي يلي جبت هو وقفتي وفهنا يا به وكي وقفتي وعقبات نسكفي دامك خير بدن ما هي جبت نسكفي داوي نوحك له رواية حديث الشيء يعني مركلين إسماعيلين نبي إبراهيم مركز حادنا قصة محي كل قاسي مركز حادنا وفي من سبع إسماعيل قبل خلوا الجسد في غرو فري قبل كلمة الله قبلنا أو حال كذا ويدينا وحكوت له وفي عنها ينا فريق وفري أو تقول له وحكوت له رأي كيف الجنة سبع محمد النبي سفر الشيء فريق جبار يعني قبل أن حيصل وراء المجتمع مرة فراد تاريخ الشيء تاريخ السبحان الله هي حديث القرآن كأمرك كعبة بسيء وإسماعيل لمن وين هاي سريع إسماعيل مكة كعبة بسيء كفرت الشيء بيد أبو النبي إبراهيم قصر نغضي ماشى يمركها هرو كجتني تاريخ العربات عموما مكة نفس المعنى النبي عليه الصلاة والسلام وقت السنة يسيدوا حديث الصحيحة إذا قصرنا فيه إلى هو الضغط يقول لنبي إبراهيم نوح الضغط يقول في إسماعيل له كنانا لغا ضغطي كنانا قريش ما لغا في ضغطي قريشنا غير بن هاشم ما لغا ضغطي غير بن هاشم أنا لغا ضغطي بالنبي عليه الصلاة والسلام مثل تاريخ العربات عموما يا ابنه وحيسكركوا ابناء قبائل بيحاي صدح مالات بايدة بغطوية كتير شفتي بغرنما الله على مصاره صدح مالات بايدة كتير شراب وبغطوية يمن كتير شفتي الجبودي بغطوية يمن وقتية كلا نوع عصا مرتي تاريخ على الشيء أنا رمسي تاريخ صاوسي سوان معها لكن إلا أثر بغطوية كلا بندنبوية على الشيء مدة انت تقرني انت سعتين التسكرانتي كو جدا بيون يمن وحمية قبيل كالورين شرية وكمل قحطانيين تاسي كي لهان شرين بغطوين ودي معروف كاهيت لهان شرين بغطوين كاوي سيدن بيون ولما تاريخ كسي تلماماننا يحايين
kuwii markaasi ugu dambeeyey ee ka jiri jiray wadanka Yemen oo la soo gaarsiiyay inay yihiin kuwii ay ka dhasheen markaa duunawaad nin la jiray yahuudi marka madaynta qabsaday in Najraan oo Kristaan ahaan jirtay lagu laayay waayo culimada qaarkood u nisbeeyaan inay sababtay ku soo degtay qutila asxaabi al-ukhdud an-nar ذات الوقود في حالة صوت وقوبنا يمن بغطايا كتير كتير إيرا ماشا لإلعباء عراق كمدنا بغطايا كتير كتير شامنا بغطايا كتير كتير حجاز يد المرة بغطايا عين كتير 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 إمارين دا كتير بالله يسخير هذا لكن بغطايا الرسمي كتير marka aynu soo qabanno magaalada Marka oo ahayd magaalada aynu oran karno taariikhda islaamiga ku weyn una baahan xogaa yar inaynu ka sheegno iyo qaab nololeedkeedii markii aynu naqaano waa magaalo ku weyn jirtay meel buuraleeya oo laba buurood hareeraha kaga wareegsan yihiin oo sida bil oo kale ay ku yihiin Quraysh baan degtay meesha tan gaar ahaan Qusay ibn Kilab ninkii loo rajiray oo kamida Quraysh nabiga calayhi salaatu wasalaam ku aqoonsada kamida Qusay ibn Kilab ayaa degay meesha tan Qusay ibn Kilab waxa dhacday waa ninkii koowaad ee awooda inuu googooyo dadka Kaabada iyo meesha xaram ka baxda lama gooyn jirin dadkuna inay la gooyn doo haysteen haddana sharciga saasoo qaba laakiin Qusay ibn Kilab waqtigiisii gooyay baa la yiri markuu googooyay ayuu dabeetana soo dejiyay xaramka gudihiisa markaas buu Quraysh kala tilmaamay meelo ay kala degdegto oo inay xadan dad in kala xadan dejiyay in badan u dejiyay Quraysh maalqabeynteedii iyo dadkeedii hantiilayda ahaa inta badan Buxaa Makka ayay degi jireen Buxaa Makka waa inta gobol baa la yiraahdaa Kaabadana ayagteeda ku taalo marka aynu eegno Makka iyo maamulada saysi kala dambeeyeen akhiran waxa qabsaday nimankaas Quraysh la yiraahdo oo wareegay yahay ninkaas la yiraahdo Qusay ibn Kilab hareeraheedana waxa deganaa qabaa'il kale oo ka mid yihiin Kanaana oo ka tirsantay Quraysh waa laf kamid ah qabiilkaas Kanaana la yiraahdo Quraysh markaasi waxay noqotay dad isku dayay in ay tijaaro adeegsadaan mushtar ayuha awoodooda ugu weyn magaalada Makka la yiraahdo si fiican ayay u degeen qabaa'ilkii hareeraha ka deganaana waxay la galeen heshiisyo nabadgelyo dabeetana tijaaro ayay samaysteen marna u baxda Shaam iyo Iraq marna xagga Yemen u baxda waxay u fakareen tijaaradooda si ay u suurtagali lahayd dabeetana waxay u sameeyeen wax ilaaf la yiraahdo oo ah wadooyinka ay tijaaradooda sii martay inay la yeeshaan qabaa'ilka degan heshiisyo nabadgelyo la galaan isla markaasi inay wax cashuur kala oo ilaaf u bixiyaan inay ka siiyaan isla markaasina inay adeegsadaan xataa nimanka madaxda ah ee qabaa'ilkaasi u madaxda tijaaradooda inay saham ka siiyaan sheekh kuna kala qayb gali karaan inay siiyaan si tijaaradooda u socoto amalkaasi mesela heshiisyada la gelayo oo ku saabsan tijaarada Quraysh ay xoog ku noqotay ninka isnaad sameeyay waa Hashim ibn Abd Munaf وإسنا كان مدى ويدي النبي عليه الصلاة والسلام يعني قصي ويدي فرأي النبي عليه الصلاة والسلام وأنك تريش مكدة شيء تجارة ويستنك يسبح لنا وهاشم بن عبد المناف وإسنا كان مدى النبي عليه الصلاة والسلام ويدي تجارة يعني اقتصاد كما كبك نصاب وبنوه وصل إسنا قيد التجارة هي أنا على عمق السماء وحال هذا آدي ويري وحوغا هبكي سميسان شرين iyo bariyaha iyo xoogaa sareeraha iyo guriyaha waxa ay taasi kamida in xoolo raacaan ay lahayn jireen iyo inuu gaadsada laakiin asaaska dhaqaalaha marka lagu deganaa waxa ay magaalada tijaari magaalada mushtar bay ahaan jirtay maadaama magaalada mushtar ahaan jirtay baa mushtarkana asal uu yahay nabadgelyo Quraysh waxay ahaan jirtay meel degan meeshay degan Makka ahi dad badanna waxay kula jirtay mucaahadaad ama heshiisiyo waxaanay ahayd in tijaarada waxa ugu badan ay ka shaqeyso heshiisyada ay qabaa'ilka kale la gashayna waxay u fudaydisay in tijaaradooda ay tijaaro duwaliya noqon karto oo duwalka kale iyo dhulka kale la baayac mushtarin karaan weliba dagaaladii ka dhaxeeyay Persia iyo Romanska ama labadii dawladood ee waaweyn ee markaa jiray
إنه وحي عقلب وليان طريقي يدود حياة تجاريها يسكحر يوروب ما وقوي إذا صمل يأيش طريقة يسكحر أنت بدن الشام يا عراق يملك بل مرسلي بقال الذي لو بدأ دولة بحياة بحري فأتوحي سبب طوال قيل هذا إن عن طريق مكة وآد وطاق بس تجارة بين مكة مثلا إنديا يملك العقل اللي بحياة شري waxay inay jirtay balad abada soo marisay Yemen bay inay jirtay dabatan Yemen bay Makka ka tagaysay Makka ka tabaysay markaasi Sham iyo xagga Rome isku qataliya saasi daradeed waxay noqdeen dad isku xidha mujtamacaad badan oo tijaariya ayay Makka ahay reer Makkana maadaama ay tijaaradaasi in badan ka shaqeynayeen waxay noqdeen dad maalqabeen badan iyo ku jiro oo reer Makka rag baa dadkii ku gaarsiiyay weelkooda dahab wax ka cabi jiray ولا شيء وقع عن ذهب يعني عبد الله بن جدعان اللي رجليه كوب وقع عن ذهب وهانشري وكان قريشي وحي على طبقات على سرية طبقة تجارة رأس المال حوين هيكتا وهشيكينا كلها تستاهد ولدها ما قبائل سايا ودين سادتك الدجاه ولما تجارة وقام شركات وكرا يودسان هاي فاصلة بدن الإسراعية وضبطوا من الشارع الفلسطينية لغا تيجي التجارة تكوى تيجي الكريات ودك الدنيا في واحد بدن هيسن الربا وخصوصا نظام الربا وزي بنجلاد استعماله iyo طبقات waxba haysana aad u fuqaraa oo aad u waxtar aan waxba haysanin labada kooxood ay deganayeen dekada isticmaali jireen inta badan meel shacbiya la yiraahdo ay ahaan jireen oo dekada jideen ka taqaanina macruuf ah waxa bilaabantay walaal khilaafadii Uthman radiyallahu anhu ay bilaabantay markaasi Makka waxay leedahay umuuma waxay ahayd magaalo baa mushtar oo xaggan xabashada iyo Afrikana waxa ka iman jiray buxuurta iyo dhirtan la shita iyo baalgarayeedka iyo maxaa la yiraahdaa maroodiga iyo hargaha iyo ninka madooba la adoonsado xagga Shaamna waxa ka iman jiray baa la yiraahdaa inta badan waxa la cuno daqiiqda iyo safeenka iyo saliidaha iyo khamriga iyo cinabka iyo waxaasina xagga Shaam bay uga iman jireen xaggan Indiya dhankeedana waxa uga iman jireen inta badan looxa iyo filfisha iyo baharaadka yani waxyaabaha yaryar raashinka lagu darsaday tirada badan leh dharka iyo xariirta iyo waxaan la tolo weelasha waxaasina inta badan waxay ka iman jireen dhanka kan Indiya tijaarada soo dhaxeeya siyaasadda Quraysheedna umuuma waxay ahayd siyaasad ku salaysan deganaanshiyo iyo in loo dhimriyo iyo heshiisyo in la galo oo ma yahayn dagaal badan taariikhda Quraysh waxay yiraahdaan qabla intaan nabiga alayhi salaatu wasalaam aanay dagaalka u xidhan horteed taariikhan waxa loo hayaa afar dagaal waxay galeen afar dagaalna waa xuruub al-tijara ka loo jiray afar dagaalna inta badan waxa la yiraahdaa munaawashaad iyo reer iska ahay yani dagaal hatta aad u weyn ma ahayn dagaalada xogaa lama yaryar aan taasi badnayn buu ahaa sababta waxa la yiraahdaa Quraysh intan ka horeysay islaamka may ku badnayn dagaalka siyaasadooduna waxay ku salaysnayd in dadka heshiis iyo tijaarada in shirka laga siiyo iyo lacag iyo qaabkan fudaydka ay ku salaysnayd waliba waxa kale siinayeen mudnaan kale waxay deganeed marka diiniyo dadku diin ahaan buu uga dambeeyay marka diiniyo ay deganeed oo diintii Nabi Ibrahim laga dhaxlay wixii ka soo haray meesha uu sii yaalay inkastoo markii dambe waqtigeeda khuzaaciyiintu ka talinayeen meesha tan ay diinta qalbeen gaar ahaan ninkii la oran jiray Amr ibn al-Hayy al-Khuzaaci oo xadiiska saxiixiisa ay ku soo aroortay inuu nabigu lahaa ka waxaan arkay isagoo naar xidhiidhiisa ku daba wareegaya nabigu tilmaamay yani ahlu naarku ka mid yahay ninka kani waa ninkii koowaad ee asnaamta keena Makka sanamkii Hubal la oran jiray uu ka soo iibsaday Shaam dabeetana tuurta ku soo qaato keenay kadibna asnaam badan baa la keenay ilaa iyo Kacbada agagaarkeeda uu nabigu alayhi salaatu wasalaam ka dubiyay 360 sano 360 sano oo la caabudo sanamadaas iyo waxaas way tira bateen qaarkood dhagxan la qoray bay haayeen qaarkood xataa waxay ka ahayd meel yar oo buuro taagan oo dhagxan ku urursan مثلا سنمدي أساس ينا إليه وقوي مروي يسفوي ملها يالي كقول يرونه كسرنا دحين صارن تاعي أيه هاي سنم عابد كله حتى نبدأ بقارئ شيء حديث يا برجال وطار بسهالي لرسول السلماني وفي شيء يعني دفكو سيد سنم عابد كان يوحى كان حد يشجعه ولها مكان وين حتى نجح
intaanu ciid isku ururinaabaanu neef adiga ku lisnaa buu yidhi markay isku dhigtaan caanahidaaba kale marka lagu lisay isku dhiga ciidaya ay sii dhagaxo kale weerkaasaabaanu sanam ahaan u caabudi jirnay yani xaj marka xataa dhagax la waayo in caana lagu lisi jiray ciidda inay isu yaro dhigto uun aad waxaa u batay asnaamtaasi iyo cibaadaadkaasi la halmaala sanamadaasi markaynu usoo noqono magaalada maka iyo dhismaheeda iyo qaabkay u salaysanayd waxaynu leenahay kacbada ay deganaayeen baa dad badan kaga dambeeya quraysh manzile ay ku haysatay markaynu eegno maka iyo dadkii u kala dambeeyeyna jurhum ayaa taariikhda inta la hayo kuwii ugu horeeyay ahaayee nabi ismaaciil ba ugu yimi agaarkooda iyagoo degan dabeetana khuzaaca dabeetana quraysh baa degtay quraysh weliba qusay ibnu kilaab ninka la yidhaahdo markaynu eegno taariikhda maanta la hayo kama badna masalan adabka jaahiliga carabeed iyo waxaa marka la eego ilaa 150 sanadood qabla alislaam taa macnaheedu waxa weeyaan 400 iyo xoogaagii meelahaasi ay u badan tahay taariikhda wixii ka dambeeya si fiican loo hayo ee meesha kan taallay waxaana bilaabay in ninkaasi qusay ibnu kilaab la oran jiray markuu meesha kan degay qusay ibnu kilaab markuu dhirtan googoyo quraysh meesha dejiyey oo inta maalqabeenkina magaalada meesha gudaheeda ay sii deganay gacaladeedana inta aan waxaysan baa inta badan deganay wadaaiftii diiniga ahaydna isaga ayaa reerkeeda u qaysaydiyay ama caruurtiisii qusay ibnu kilaab waxa ugu weyne uu meesha kan ka sameeyey waxaa kamid ahaa daaru nadwa oo ah guri ay qurayshi ku shirto oo laysugu yimaado oo taladeedu ka go'do gurigaasi runta yidhahdaan waa waxyaabihii saaciday inay markii ahaato meel nabadgelyeed ka salaysan waayo mar haddii la hayo meel waayeelku intu isugu yimaado lagu shiri karo arrinta lagu gorsan karo qadiyad kastoo dhacda mar haddii ay soo gaari karto waayeelkoo loo soo gaarsiin karo waa arrin inta badan nabad iyo xal ku dhamaan karta qusay ibnu kilaab marka waxyaabaha caanka uu sameeyey waxaa kamid ahaa daaru nadwa meesha la yidhaahdo oo uu ka sameeyey guri yaroo xagga albaabka kacbada u furan oo ay odayada quraysheed oo dhama fariistaan oo lagu shiro waxaa kamid ahaa inuu liwaada quraysheed isagu markaasi gacanta ku dhigtay oo inaan dagaal geli karin qurayshe ilaa iyo liwaadan ay hayaan mooyaane waxaa kamid ahaa yani xijaabada oo ah furahan kacbada in iyagu haystaan iyo sadarada iyo cidda u wadaagada iyo intan oo dhan in iyagu gacanta ku hayaan waa xijaabadii oo kamid ah rifaadada waxa la yidhahdo rifaadat lxijaaj oo ah xujaajtu markay yimaadaan waxa aan wax haysan in diyaafo loo sameeyo meel ay wax ka cuni karaan dadkan soo xajeeya xajku waa cibaadaadkii uu ka tegay nabi ibraahim marka alayhi salaam ilaa nabi ibraahim taanu baa loo soo xajayay marka xataa intaan nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam iman waa la xajayay laakiin xajkii waa la qalday oo shakiyaad iyo waxaan diinta kamid ahayn lagu daray ayaa joogay marka xujaajta iyo dadkan isugu yimaada ayuu wuxuu samayn jiray diyaafa meel xawd ay ka caddaan oo biyo uu macaaneeyo timir iyo zabiib uu ugu daro iyo cunno la siiyo wuxuu sameeyey yani siqaayat alxaajka rugada xijaabada waxaasoo dhanna isaga gacanta ku hayay baa la yidhahdaa iyo abuurtiisii qaar kamida buu gacanta usii geliyey مثلا دار الندوة يسمى يوكل بالله إذا الباب إلى هي حاجة مثل كعبة وسيجيدا وماشي أمور دجالك ينبض يوحسب الوجود مشري وماشي كل من شرين عقود دي مثلا وحي هشيس أما تقول هالنقطة أما هشيس كذا بقالة يوحى لك على بعمش الكسرها هاتو وحنا فدي شرين ولا دمنا الخوف من حيوان تغارك من أفرط كي مثلا تشرب بيشجان علماء التاريخ مركز كور والرميان دار مشهورة ما هي runtii Qusay ibn Kilab ninka la yiraahdo Quraysh ka tirsanaa magac weyn buu ku yeeshay Quraysh dhexdoodii aadaadkii iyo dhaqamadii wixii uu gooyay Qurayshna diinta ka dhigteenba sidooda loo raacaan waxba laga qafin ama ha noqoto sidii ugu qaybqaybiyay arrimahaasi maamulka ama ha noqoto wixii caadiya dhaqan uga tagay kalkii waxay ka dhigteen in wax diin oo kala ah oo sidooda loo ilaaliyo ahaan nimanka hore Quraysh ninka wixii uu go'aamiyay iyo go'aamadii waaga la qaatay sidooda ayaa loo qaatay isaga dabadiina waxa soo baxay runtii rag kamid ah abnaadisi ama dadkiisi oo kamid yahay هاشم بن عبد المناف أو كمد المطلب أو كمد هي عبد المطلب أو كمد يا أبا طالب فلما أنت على رنكر الله حيسيك على الدحلان إلى يسير هيستان نوحي وبهوت كتغي قصة صيبنا قد يدع في ماملك مثلا هاشم بن عبد المناف بن قصي يعني قصي يوغي
ونكي بلابي هشيسيدنا العقل الله قرطك ودين كتجارة ومثاني إيراد كوحا الله بحيي يكاد التجارة دي قريشة نقوك الدنيا وكبح سنة شغرنا وانا نمكي وقضي ولا عياله وبدن بلسة غير مقاي كعبان ولكن المطالبة أي كبح علي مركو يسوي بنتي قفصدي مطالبوه قرآن هذا لإرادة من ظلم نعبوها من أخلاق في عندك فربوها من عبادة بدنبوها قرش مركا أريه كدن بيان بوها وحكمدها هاشم إنكو بالي مطالبنا عداك وها إليه عبد المطالب مجلس عادي الشيبة قال له رجري وحا لإرادة هاشم هي قطيبة لإرادة هاشم markuu guursaday wiil dhalay ayuu ka tagay wiilkii uu dhalay wuxuu kaga tagay yani isagoo yar ayuu Hashim dhintay dabeetana odayga Mutalib baa waadan bal loo sheegay isagoo wiilkii lix jir meelaha maraya ama weynaaday wuu doonay uu soo qaaday markii uu keenayna carabtii ama Quraysh waxa aragtay wiilkan yar uu sito dabeetana wiilkii waxay kaga bixiyeen war waa adoon yar oo soo keensaday Abd al-Muttalib uu bixiyay yani magaciisa fi shayba buha Mutalibna waa adeerkii oo Hashim la walaala oo soo koriyay markaas iyo keenay dabeetana Abd al-Muttalib uu kaga caanbaxay Abd al-Muttalibna waxa runtii nin aad ugu caanbaxay dad oo shayba alxamdulillah markay doonaan nooran jireen waanu kala ku caanbaxay ninkii uu qoday mar labaad ceelkan Zamzamka يعني زمزم كان نبي الله إسماعيل هي كتجي لكن واحد هذا خزاعة برجي ماشي اللي تكذب الجلاية وأركان إنك تبع حيان بيعات أنا ما دبوا ولا أنا ما تفترات مركا ماشي ولا واي نوح الله شجعين الرياضي عبد المطلب العفر شار الرياضي مركي ودا بيتنا الله المعنى ماشي تاعي الرياضة في سنة حتى أنا ما كنت خسارة إلى علي بن أبي طالب كسارتي dabeetana ceelkan buu qoday ceelkii Zamzam kama ku qoday soo saarayna waa muran dambe ka yimi oo Quraysh ba ku qabsatay Quraysh markay ku qabsatayna qaab ay u garnaqsadeen ala kulli xaal insha Allah wala laga yaabaa inay mar dambe nagu soo noqoto waxaan uga jeednay intan aynu ka waramayno dhan umuuman inaynu ka warano qaabkay u dhismay magaalada Makka iyo sidii loo joogay laakiin taariikh ahaan marka laga waramayo تاريخ هذه يقول حي قبل عبامين النبي عليه الصلاة والسلام بلا شبيسي دام تاريخ بين النبي قولنا يكون عليه الصلاة والسلام انت قول الرئيس واحد مبينا وحفظا لغا شيئين ما وحفظا ضفوا قورنين وحاوه بدنا لغا ورماؤنا ما يتعين النبي عليه الصلاة والسلام هي بلا شبيسي المرارك وبدنا وحكا لغا ورماؤنا الزمزم كاي يسيدي وقطمي iyo in la tilmaamo maasirtan faatu nagu ka dhashay in reer meesha magaca la ku ahaayeen haduu yahay oday Qusay ee magaalada deegaankeeda waxa kan waxaynu naqaanaa nabiga calayhi salaatu wasalaam marka laga waramayo nasabkiisu saddex qaybood buu u qaybsamaa qayb culamaa taariikh ama culamaa siira dhamaanteed way isku waafaqsan yihiin qaybna aad bay isugu khilaafsan yihiin qaybna iyada waxa laga sheegaa waa iska war ku tirkuteena saddexda qaybood aynu tilmaamayna waxa weeyaan qaybta ilaa Adnaan inta la gaarayo Adnaan inta la gaarayo oo 22 awow ka tirsan 22 ka tirsan culamada taariikhda soo warisa dhamaantood way isku wada waafaqsan yihiin يعني النبي قال له رجل محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر وانك قريش الله يرحمه فهر مركزي طوان بوك صوت الصباح حاجة من بعد ما يفهر لا طوان كريسيك لا الصباح قومي الله عطان كاس يقول الاسكول وافق سيهي وحانا يبضلتين ثابتين marka Adnaan laga bilaabo ilaa iyo nabi Ismaaciil la deeynayo aad ba khilaafadan u jira yani taariikh kala badan oo aad u kala gedisan oo aan isku xidhnayn ayaa markaas la tiriyaa laga bilaabo weeyaan Adnaan ilaa iyo inta la gaarsiinayo Ismaaciil ama Ibrahim
حاجة كثيرة من سنة ما كثير مربضا إن النبي إبراهيم وأبتر إلى آدم هتجار سنة كتب التاريخ وكتب السيرة أنت هو القرآن مثلا وحصل يا عيني يا عدنان مثلا يا إسماعيل ما لها إلا فرطا معلومة إلى يوم حيثيات لكن أنت تنبوه دمي وإسكا مركز إسكا تربدأي شقورنا وما وضعت المامنة marka aynu hore uga soconno inta tan waxaynu u gudbi karnaa waxyaabaha ugu caansan waxa kamid ah biir zamzamka iyo qodistiisa oo aynu waxa ugu asaxsan riwaayada ibn Isxaaq laga warinayo ee Ali ibn Abi Talib gaaraysa sanadkeeduna xasan yahay ee sheegaysa inuu ku riyooday Abdul Muttalib ومرفات الله في المامي أما صارت شيء يساوي وقصص عليه كلها والرواية ضعيفة بين هذا يعني وحيابا بدن بالشيء أنا وماشي قصص عليه وعيل كم يكون قضية على مدى الله شيء وحيابا قصص عليه وفاتك صار ضمي وضعيف وحبدنا رنتي مشيئة أتذكر لبعض أنت بدل الشيء وقصدي وقت يقول النبي قول الشيء عليه الصلاة والسلام عام الفيل كاه قصة الفيل يضوح أن القرآن كالصبي ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل قرآن كأي صبي فلماذا تاريخ بقفطانة وحي كنت المعمالين هاي شم بغلية الضباطا أما شم بغلية قوية الضباطا في ميلادية فلم كان لماذا كن يكود مرسا ففي شم بغلية الضباطا قد كنا وحي كنت المعمال شم بغلية قوية الضباطا كي ميل عسين هاي قصة دودوك كده بأنك إنه يسوسوا بيننا وحي شيرسة يعني بعض الصحابة اللي بيور ورية لكن صحابة اللي بيور ورية وصحابة يرية يجا قصة إلا كنت صنبان لها سيود حيشي لكن واحد دران كرتاون آثار كهذا يقصد ولا يقالني شفت مثلا عائشة رضي الله عنها وحي شيء سوق عدي يعني وسنة صحيح سنة حسن وقصارة عائشة وكلمة له وحي شيء سوق عدي وعرفتي يده مرودي أبراهيم كي ودي iyo kii science ka waayay meedmeedi jirayba labadaas oo aan doolayaal magaalada dowsadeen soo gaadhay يعني مروديada nimankii wareed ma kamid weeyaan oo aan doolayaal oo dowsada inay soo gaadhay مثلا saxaabi yar oo la jiray Qabat ibn Shaym ba filaya isla wuxuu sheegay inuu soo gaaray inay hooyadii tustay isagoo yar oo caruura hooyadii inay tustay faaladii uu dhigay muroodiyadii nimankaasi wateen oo midabkeedu xataa isbedelay laakiin isaguna وعام الفيل وحوغا بكوريه يعني ويل يرى وحوغا جرى سنوات ايوها اسنوا ترمذي باورينيه على كل حال قرائن بدن بات المامسه اما قصه سيده ودعدي خلاصه القول على شيء من ابرها لورن جري oo xabashi aha markay dhul badan sameeyeen isku dayeen carabtan ku sii socotay kacbadan waxa jisay in laga duwo ay u taag waayeen ayuu meel sameeyay meeshi waxay soo wariyaan riwaayad ka saari xooganeen in carbeed kiniisadii sameeyay kiniisadii wuxuu kaga sameeyay ala kulli xaal wax kastaba tan abraha la yiraahdo wuxuu ku tala galay inuu duulo oo uu soo dumiyo abraha marka waa nin xabashiyeed oo yaman xukuma xabashidu laba jeer ayay yaman kulba gumaysatay marka waa marka mid ah kooxda tan abraha uu joogay waa markii dambe ayaan rajaynaya abraha wixii ka sii dambeeyay waxa qabsaday yaman Persia nabi عليه الصلاه والسلام markuu soo baxay nabinimada lagu soo dejiyay Persia baa haystay yaman Iran baa haystay waqtiga ay xabashidu haystay meeshatan ayuu ciidan diray ciidankaas oo uu tala galay inuu kacbada soo dumiyo laakiin ciidankaasi markii uu soo gaaray maka duleedkeeda waa bilxas meesha la yiraahdo markuu soo gaaray baa la yiraahdaa fadhiisteen muroodiyadii marka xagga kacbada loo dareeriyana way fadhiistaano hadii jiha kale loo sii daayana wuu iska dareeraano ماشي يبغى جوجنا إلى إذا قصيت حماي طير نبابيل ترميهم بحجارة من سجيل شمبرها عصي دولة بحنت الله دعية يا يمي شمبرها عصي بحنت بيدك الله دعين رتي بدماشي بكل إنسان أرواح عن الصبين أبرها كانوا حلال هذا سمعوا يسوي كل التبين هذا يسوي قضاء يبغى يمو حنون على كل عيد أنا ماشي أسوي كل التبين قصة سمك الصوت وطبوح يشير سائل للشبيين أبرها يكون حديثي سيدا قرآن كمسكي سقعت
nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu tilmaamaa inuu dhashay sanadkaasi caamul fiil. waxaa qisooyinka meesha la tilmaamo kamid ah nabiga calayhi salaatu wasalaam aabihii cabdillaahiya cabdilmutalib bay waxay sheegaan inuu nadaray. nadarkaana ibnu cabaas baa soo arooriyey sanad saxiixa kusoo saaray inuu nadaray cabdilmutalib. waktiga uu nadaray riwaayad iska daciifa kusoo arooray, laakiin marka la isku daro cala kulli xaal mursal saxiix sanadkiisu xasan yahayna waa kusoo arooray. waxa iyaduna duuduubkeeda sheegaysaa cabdilmutalib markuu zamzamka helay qurayshtii kale ku qabsatay. qurayshtii ku qabsatay waxaa lagu heshiiyey in la kala garbaxo. riwaayaadkaasi qaar kamid waxay sheegayaan inay qabteen sham iyo yaman xaggaa in la isla qabtay, kaahina joogtay tabafala labadii inay soo kala saarto. dabeetana dhexda markii lasoo socday in biyihii madheen. riwaayaadka qaarkood waxay leeyihin biyihii oo dhan baa madhay, qaarna waxay leeyihin isaguma biyi ka madhan iyo intii la socday ee intii haysatay biyi kamay madhan. markii biyo la waaye kadibna ama fardihii uu fuushanaa mid kamid ah adinkiisu meeshuu ku dhuftay baa ilaahay biyo ka siiyey. riwaayad kaloo daciifana waxaa rajaynaya inay sheegaysa roob baa daay. mid kastaba ha noqotee biyaa la hela. dabeetana dadkii haraadka u baktiyi gaaray mar labaad unbaa ilaahay cabdilmutalib biyo ku siiyey. dabeetana waxay dhahdeen ninkan mar dambe alla biyo nagu siiyey kuwii hore waxba yana ku qabsanine ha loo daayo. zamzamkii saasaa loogu daayay baa layidhi. waxay yidhaahdaan caruur badan markaa muu lahayn bay leeyihin lagu haystay zamzamke wuxuu nadaray hadduu xoogaysto ilaahay 10 wiil siiyo wada ka dhicin karo inuu 10 mid kamid ah ilaahay u sadaqadeeyo. 10 mid kamid ah inuu ilaahay u sadaqadeeyo. waxa la yidhahdaa 10 wiil baa ilaahay siiyey. dabeetana nadarkii wuu qori tuuray baa la yidhahdaa. qorituurkii wuxuu ku dhacay cabdillaahi. dabeetana cabdillaahi inuu gowraco way ku adkaatay. dadka bar waxay qisaska qaarkood sheegaan in falalawadu uu geeyo iyadoo ay tiri u sabeeyo 10 halaad diyadu ahaan jirtay isaga 10 halaad qorituur oo cabdillaahi ku dhacday tiri 10 kale cabdillaahi ku dhacdo 10 kale boqol ay saartay. laakiin riwaayada fiican iyadu waxay sheegaysaa inuu boqol iyo cabdillaahi loo kala tuuray, yani loo qorituuray qur'a loo sameeyay. cabdillaahi iyo boqolka markii loo qorituurayna boqolkii halaad ay qur'aadi ku dhacday. marka nadarkii wuxuu ku dhacay boqolka halaad la gowraco, cabdillaahina la sii daayo. cabdillahi markaa wuxuu u guuriyey inan aamina bintu wahab la odhan jiray. tafaasiisha sida loogu guuriyey iyo arrimaha ku saabsan kumay soo aroorin iyaguna dariiqa saxiixa. asxaabu taariikh yani riwaayadaadu tiro badan bay iska soo arooriyaan. cumuuman waxaynu leenahay un gurigaasi gabadha wuu guursaday. dabeetana wuxuu qabtay madiina. riwaayadan rajaynaya inay xasan tahay baa sheegaysaa inuu u diray timir inuu uga soo iibiyo oo timir ka doono. cabdilmutalib uu uga diray madiina. markii uu madiina yimina wuu ku xanuunsaday cabdillaahi. markuu xanuunsadayna uu geeriyooday. wuxuu geeriyooday riwaayadka saxiixay sheegayaan iyadoo uurka uu ku jiro nabigu calayhi salaatu wasalaam. culamaa taariikh qaar baa qisas badan oo kale soo arooriya waqti inuu nabigu uga dhashay intaan sare inuu jiray waxaa, laakiin inta badan waa iska wada daciif. waxaasi insha allah waxaa saxiixa inuu uurka isagoo ku jiro uu dhintay nabiga aabihiiga calayhi salaatu wasalaam. culamaa taariikhna waxay wariyaanba islaantii markaa gabayo baroordiiqo ay tirisay oo ay odaygeeda hadda dhintay u tirinaysay. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dhashay markaasi maka. dhalashada nabiga calayhi salaatu wasalaam war badan oo ustuura baa laga sheegaa, warar badan oo aan waxba ka jirin. laakiin waxaynu isku dayaynaa waxaas aan waxba ka jirin tirada badan loo dhan inaynu iska dhaafno. nabigu calayhi salaatu wasalaam magaalada maka ayuu ku dhashay. sanadkaasi la yidhaahdo caamul fiilka. caamul fiilkaasi oo u ahaa baynu odhan karnaa irhaas, yani nabiga calayhi salaatu wasalaam alla uu sii muujiyey oo yani basharkao dham qadiyaday sii fahmeen oo warkeedu dunidao dhan uu gaadhay oo aada uu gaadhay. qaabkii uu nabigu u dhashay waxa ku soo arooro oo dhami inta badan waa wada daciif iyo mawduuc iyo kadaab. wuxuu ku jira waxaan khayr badan lahayn.
اللهم إلا حديث حسن أجل حسن لغيره والبسونا وشيغيا إن أي كريوتي النبي عليه الصلاة والسلام هو يدي نور كصوب حي وقصور الشام قرن فيه كاسي وإن شاء الله حسن لغيره. أما وحل عليه وحكى لا يكسو عروريان أما هالنقطرات في أور كالنبي يوسي دي ووفض ضايا كمبوها إياه وحن يدري مجرين وحاصل موسعون وحن سلب بدن أما حوق بدن وهينين وحن لما دايا ونقوه شيء دايا ما قصاد عين النبي عليه الصلاة والسلام على وسود ودون وقعمون بروك الفتاة لكن وحاصل وحما إن شاء الله وحما اللي يكون كردين ما يعني واحد في جعلين إلا بومبونيو لكن بومبونس الرسالة هو يوحي الله وقوع ماني سدو دشروح بدن وحما كردين ما رواية ضعيفة الشيء يسوي قدام بعض الشيء إذا لفتد ضعيف قارب الشيء جملك الجبريل باب قدي إذا لفتد ضعيف قارب الشيء عبد المطلب قدي ينوى ضعيف لكن واسكم معقول إلا يلاحظه عبد المطلب ما دام يسوي هيي وعنو أبيه وبنته ويوجه هو يسوي سكرين هيي إنه يسوي قدوه حنانية وتصوح معقول وصير عالية وفقصا أما واحد كذا الشيء يدمي هو ضعيف وحركة مشيرة وحكى الله من وحيابها حديث ضعيف كثيرا بدل أما موضوع كذابين بدل كتير الوسع عرورية شنبا يلي وحشالي أما صنمدي معابدي وثنين طبعا بعض عرقي أما بغرطيدي كسري وفيري وصادعي أما بحيرة رئيس أول ورجعي بيلغوهي أما دجلاء يعني واحد بدن بيشيغان لكن كل هذه وكسوقات ماله فاسي درادة وحاصل واسكن عطينا لأن كدين إنه النبي قلنا الشيء عليه الصلاة والسلام هو الماء هذه يسيده هو مشينا إلا هو ملي النبي عليه الصلاة والسلام تاريخ دينه الشيء وحي علماء التاريخ تقرأ اسكوه وافق سيين وقت الله يلاحظه عامل فيه لكن مال مكبشة وقضية كمربطا مثلا صاحب الرحيق المخطوم ويسوي لي مدوى الاسكوره وفصيل حديث صحيحه كصارري اللي نبغوا سنين لا شيء اذا تمركم تشرو اللي النبي عليه الصلاه والسلام ما لن السنينات بشيء اذا يحمر انكم تشرا احاديث صحيحه وكصارري وانا صاصك كصوالحي سنة كاسي عام الفيل ولا شيء وانت بدن ولا التاريخ الاسكوره وفصيل لكن goorma ay ahayd waxa mashhuura oo aad u caan baxday oo dadku inta badan u haystaa inay tahay 12kii Rabiul Awwal oo sida ugu mashhuursan laakiin wax ku asaxay ma jiraan Ibn Ishaq ayaa soo arooriyay 12kii Rabiul Awwal inay tahay ابن إسحاقنا سنة سجنكم موسى أرورين على شدة النبي عليه الصلاة والسلام إلى اللبية تمن في داحي الواقدي بسي ضعيفا يسوي حساء أروريا إلى هاي طبعا كي ربيع الأول أبو معشر السندي مثل إعداد علماء الحديث أكتب سنة ضعيف كا إنك استعيد عدم بصير بو في المغازي كوها سيدا واقدي وكلا إسنو حساء أروريا لبضي ربيع الأول صاحب الرحيق المخطوم وحسابه قاطي محمود باشا الفلكي وذاك الإرادات تحقيقي سيده وكشي هذي وحي بارن اسميته ماشي أي كجمع يسير ربيع على والكي سنة كاكوب بجنيت دلتنا وحي هذا الاسمين تعسي وحي كوب بجنيت سجالكي ربيع الأول والله أصلا يجو وحي كنت تحتاج يجو عن تاريخ عندي للسور ورنا نرسور وحي أرورنا يتحيرون من حيث التاريخ سنين تعسي بورنا يكون بجميسي أيه المعلومة خاصة دلتنا وحي قاطرين يكون بجميسي سجالكي ربيع الأول مثلا كلامك على الشغب هذا وحي يكون بجميسي الله وعطاكي عمل نبي الله وعطاكي إبريل شنبقل يقوب يتضباطكي سيدا وقيرة يعني محمد سليمان المنصوفوري اسكو صدوق وحلو بنين الربيع الأول قيت إلى هراء واحد كم دام النبي عليه الصلاة والسلام لكن بالضبط من ما شفته ولذلك بدأ المولد كوضوضية وحكاني ما العلاقة من بين مولد سنية يعني مولد ستة وحكا الرئيسة إن معلومة هنا يتعين لك أسطو
laakiin waxay ahayd haddii sunna la rabo in isniintaa sunna ah la soomo kaasa ku filan. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجي مثلا قضية المولد كصافا بلا شبه كصافا مو تعليمين تي كصافا تاريخ ومعرفة كاهي وحاول لوين معرفة تطبق معرفة كاهي. إذا أبدا رب النبي عليه الصلاة والسلام وينين تيسي والنبي وينين معرفة بشر سنينه مولد كان انت بدأت سنين بقوة بابا مرش معين مولدنا مرة خميس بين مولدنا مرة لكن أكثر واحد يعني إن مولدهم معنا السنين تنوين أقصان توقعت كلهم مولدنا وقاتي قاطوا لهم وتشيدين واحد يعني إن معلومة السنين تا أوي يقول بكون شفتين السنة هاي إلا صوم وهذا يكفينا. أما واحد عليه حكى الصاع رئيسه واحد بدنا السنة ده ملها وحتمي نبي عليه الصلاة والسلام مركاو بالشيء يدي الناس نوتي شيء ويدي يعني ياكل الناس نوتي. الحديث الصحيح أيوه قصار ريمكه إلى الناس نوتي شيء طويبة تبدي اللورنشري وعيد وضع الدولار وولي هي أديك أبي لهب إنك اللورنشري النبي عليه الصلاة والسلام كوي هالك هامك النبي لماذا النبي قال السيئة مركز النبي يرايا الشيء من دينا الأخير عليهم بواسك يوه بومبونين يي مركز قبل دعونا ولها وإلماء بالشيء والناس نوتي لسي إلماء يديبه كانوا للناس نوتي وأنا قبل دعوتي الناس نوتي سي حمسنة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يا ديركي حمزة الناس نوتي انت ولا عليك وحاية حمزة يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام ناس نوتي انت ولا عليك وحاية والله ما بوحى وذا الناس نوتي سي صويبة إسلام تعالى ورنشرين. وحاتمي حليمة الصعدية قصة الدير اي شاعر ريال أصحاب السيرة سنة كذا مرم بدن بكوشرة أنا ما بدن نوي دي تسوقن عن سيرة لكن وحى سوغن كل إذا النبي قبيل كابر بن السعادة اللي يدعوه هي إسلام الصعدية اللي يعطينا الناس وتستير ويسوغن كان إنه ابن إسحاق لا قصة الدير لك الماما وقصة كان يد سنة كذا مرم بكوشرة وقصة الشيء من وقت أبارة يا هاي ويرى أبارة ربنا يسكتشفته أي قبلنا الدمر كلا صور على الدمار يرى العين صوف وشيء الدمار كذا تمر دريد دراد كل بلوش وكسنة كذب أي مكية مادين أي سقط يعني إلمو أي ناس لوتيان هلان وعرفت عدد إذا وحى ما دام مكية مجالة هاي الحاضر غير مجالة وحي رجل عفرت سيئة عاصمات في عنها شيء مجالة على مثلا البادية قصة القرآن أنا بادية قصة عبان وحي واكي جرينا عفرت مركي بادية قصة وبعضين أبا وقاطوي في عناطو وكل مجالة دين يحول أكتنتي ساسي درادة عفرت انت بدل بادية اللي يدري جري إسلامها بادية هي الناس كودوا يرمائية هنا الناس كودوا كل حكسين جرينين كبيرين كيما دنبي قوة تجارة بشيء عبروها سمالها أيها رجل كان اللي كوسو الناس روتيسي وكوسو كورية ولتنام واللغو مال سينشري حوالا لغو سينشري بصدق ابن إسحاق سيدو سوري وكلا يمركي مقالة يمادين دمركي عروسة ولا هلالين محمد يالله يدافع بالله عليه الصلاة والسلام وإنا يرانا أبلحين ووضع قسين دونا واسكا منها بشيء مولي يبال ديديني ساسي دراد وحيلا ينوال كيو دافدافي مقالة من صبر بلوينة ووحلا دافدافان كان دافنا ممركيان وحكا لسيوهي ايه سيدميتي بالدفر رمضان حلان نظمينه هاتا وحوم كسيفر الله ومركا ساسكا سوق عطيبيتي أقول كيرا وبيلا يهي نالسولة سمكي ساسا سوق عطيبيلا سيدي ما قصب حدي لكن وحي شغال سمكا ايضا وحبا لنا كاركتي الناس كيف ينوجسوا ودنا الناس كيدا وحبا عنهم بسكدر رايي سريكي رايي كيرا لجقيه وكتر بطيو حولو ديبا الهي ورماني يعاني يرو أباره حتى غيره يرهدان دكا كله ورمحا هكذا كان الحالات باجستيد لو سودا شويه ولا لصوت باجي يوم دكا كله وحبا قوة مصو فايدان ومثلات الحوله هذا ما ضرره بركات كاترة بدل هذه النصوص تشكتا ومحوق بدنا سندهان محافظنا رمضان واحد ما يكشيها لكن إن أي حليل الناس مجسير وسوانس حليل الصعيدية سلامة لنا الناس مجسير رواية الشيء حديث وسوين إن شاء الله تعالى انتي اي سلامة لنكشو بين النبي عليه الصلاة والسلام وحد عليه المعجزة دي التي سد الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام حديث الصحيح ايضا وحي سويسا ورتشر ان جبريل وقالي
marwa markii Isra wal Mi'rajka marna waa markan uu yaraa markan uu yar yahay qolada tan la joogay Halima Saadiya gurigeeda uu joogay waxa ay nusuustu sugaysaa in nabiga alayhi salaatu wasalaam oo ciyaar kale la ciyaaraya sida xadiiskii saxiix muslim kaba ku yaalay inuu Jibriil u yimid sida ciyaar kale la ciyaaraya dabeetana Jibriil inuu la giday inuu dabeetana laabtiisa dilaaciyay in qalbigiisa wadnihiisa la soo saaray wadnihiisa dabeetana alaqa xinjir yar inuu ka soo gooyay xinjirtaasi inuu yiri waa xaddu shaytaan minka waa qaybta shaytaan nafta ku leeyahay yani qof kasta bil aadama malaguna waa la xidhiidha shaytaanka waa la xidhiidha lama khayrka laga xidhiidha iyo mid sharka laga xidhiidha jira ka sharka laga xidhiidha marka nabiga isaga laga saaray alayhi salaatu wasalaam Jibriil marka uu qalay wuxuu ka soo saaray wadnihi ila calaqada yar xinjirta yar buu ka tuuray dabeetana wuxuu ku sheegay inay tahay xaddu shaytaan minka wuu mayray tusti zahaba oo ma uu zamzam ay ku jiraan ayuu ku mayray dabeetana thumma la'ama dib isugu geeyay meeshii buu ku aliyay surgery-gaasi ama qalliinkaasi waxa sameeyay malakul Jibriil ahadiis saxiix ah ku sugan ayuu Jibriil sameeyay qalitaankaasi arrintii yareedna waa aragtay markaasi oo islaantii baa tagana waxay yiraahdeen wiilkii yaraa la dilo oo de waxay arkeen halkaas isagoo lagu lagdayay waa markii dambe islaantii soo aragtayna waxay u timid nabiga alayhi salaatu wasalaam oo midabkiisii shira bedelay ilaa nin qalliin lagu sameeyay dabeetana Anas ibn Malik oo xadiiska warinaya wuxuu leeyahay tolmadii raadkeeda waa ku arki jiray buu nabiga alayhi salaatu wasalaam Anas waa ninkii wiilkii yaraa ee u shaqeyn jiray nabiga alayhi salaatu wasalaam markii uu nabigu hijrooday Madiina tobankii sanadood oo Madiina joogay nabiga khaadimuha Anas ibn Malik saxaabiga la yiraahdo markaa wuxuu leeyahay nabiga waa ku arki jiray buu leeyahay halkii uu ka tolay malakul Jibriil khaydka waan arki jiray buu yiri meeshaas Halima Saadiya markii ay aragtay in wiilkii da arrimahan inay ku soo kordheen bay wax cabsatay deetana way soo celisay masalada sheegaysa inay wax cabsatay musnad Imam Ahmad bay ku soo arortay laakiin sanadka ayaa laftiisa wax laga yara tilmaamaan in balada muddo saacan aanayba ku jira insha Allah sanadku xasan hadii ninka aanadiisa oo tasriix la helo ala kulli hal islaamtaasi waxay ka cabsatay maadaama ay aragtay wiilkii wixii ku dhacay oo dhan way cabsatay wax tilmaamayo wax ugu noqonin hadaba feerkoodii isaga celi dib ay soo celisay waxay keentay markaasi magaaladii Makka ahayd ay ku soo celisay waxa ay ka gelisay markaa feerkoodii hooyadii baa gacanta la geliyay hooyadiina markii ay muddo yar haysayba way geeriyootay waxay qabatay baa la yiraahdaa Makka soo kaca Madiina soo qabatay iyadoo rabtay abtiyaasheeda ama wiilka abtiyaasheena inay soo tusto isla markaas inay soo eegto xabaashi odayeeda dabeetana markii ay ka soo noqotay dhexda soo socoto ee dhexda ku gooday sida walaal taariikh sheegan alabwa meel la yiraahdo Makka iyo Madiina dhexdeeda ayay nabiga alayhi salaatu wasalaam hooyadiina ku dhimatay halkaas waxa ka soo qaaday gabadhii khaadimada ahayd ee nabiga markii aabihii dhintay wuxuu uga tagay baba la yiraahdaa shan neef oo geela filaya iyo yaro aliya iyo islaan madow oo Ayman la oran jiray oo nabiga alayhi salaatu wasalaam tiiso xaadirada ahayd ee soo korisay marka Ayman iyo Abdul Muttalib oo dadii hayay iska hayay saasba Abdul Muttalib ku hayay ilaa isaguna intii uu ka geeriyoonayay waxa la yiraahdaa sidee jir meelaha markuu ahaa iyadana sanad saxiix kuma soo aragna culumada taariikhda sheegtay sidee jir meelaha markuu ahaa buu geeriyooday Abdul Muttalibna markaas baa lagu wareejiyay adeerkii Abi Talib nin xoolo badan ma ahayn laakiin naxruur badan oo ahaa mana xoolo badnayn hadana nabiga alayhi salaatu wasalaam muddo aad u badan ayuu maciisa ilaa intuu dhowr iyo 40 jir gaaray nabiga alayhi salaatu wasalaam si weyn buu maciisa waxa in badan oo la soo wax ka soo rabay inkasta ilaahay ku anfacin diintiisii waanu rumaynay Abi Talib isagoo 40 sano nabiga uu soo gargaarayay ku dhadhow haddana gaalnimo buu ku dhintay ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وحمركي يدن بيسوي دمانية وقوقلها كلمة أنا لا أي آخر وحقوقه يديون له
laa ilaha illa allah ku dheh markuu isiraado laa ilaha illa allah dhana habarqabi abi jahl oo meesha fadhiya yidhahda waa ceeboobaysa ma maanta diranka yar raacday adigoo qurasho odagii daba fadhiday saatan oo halkaas u saaray kadibna gaalnimadii buu iskaga dhintay waana kuu nabigu la alayhi salaatu wasalaam cid gaalaha oo nabigu uu shafeeci doono isagaa jira laakiin shafeecadiisu ma noqonayso mid naar lagaga saare waxaa naarta kulule weyn baa laga geynayaa iyo waxaa loo geynayaa naar yar oo aan laba kabood oo naar loo gelinaya laakiin waa laba marka loo geliyo buu nabigu yidhi madaxiis yani baxbax min annaar ilaa qoobka naar joogta urad ama kaba noqota wax laga noqotay ayaa la gelinaya laakiin taasaa madaxiisu ka fakfakleynaysa xagga sare waa cadaabu cadaabkaasoo abi aalib gelaya noocaasiya idan ninkii gaalnimo ku dhintaa aabbahay baa sheekh ahaan jiray iyo adeeradayba awliye aha waxba ku heli maysid haddana dadku mid khayr qaba ha noqonin walidaalika baa qur-aanku wuxuu kaloo inoo tilmaamayaaba de nebi wiilkiisu ahlunaarka ka mid yihi nabi nuux soo qur-aanku inooma sheegayo wiilkiisii u taag waayey oo laha warkaalay anigay soo raacay doon soo raaca lahaa buurtaan ka fuulaya ayaa iska tag qur-aanku wuxuu kaloo inoo sheegaya nebiyo haweenkooda ay ahlu naar noqonayaan xaasaskooda markay raaci waayeen وك امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما شيئا وحكى له عكس القرآن كله شيء هوان إلهي الرميي وردود قالاها يغنى جنة الجلية وامرأة فرعون إلهي آيات كسكة ورمية إذن أبي طالب بقى مدسه هي أبي طالبنا قصص بدن baa laga sheegay intuu nabiga ayaa alayhi salaatu wasalaam laakiin maadaama aan oo hayna riwaayad saxiixa insha Allah yana iskaga boodayna waxa inta la raaciyaa waa tagistii uu nabigu soo dhooriyay 10 jira u tagay